النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن ماجه وصوص عليه حسن كا حاوت المام يا دد كيني كمديهين ضد مفاتيح للخيرة مغالق للشرة ضد فريالو خيرك شركنا قفلوا يا عكس جودة ضد كيني كمديين قار شرك فريالو وبلدهم كشقية خير كان قفلوا أسو نبي المامي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيها الأحبة بني آدم كان إلهي بالقرآن كان قلت المامي ولا يزالون مختلفين من طبع البشر باو حكمده إني كلا قد سنادان كلا آراء قد سنادان كلا مصالح دوانادان كلا أركتين نقضان خلافين يماد ومن طبع البشر لما نيجي هذا أنت بدن محو خلاف كود عيه خلاف كستور دع حلبة للرادية ضدكي تاريخ الدين الدبوغ نقولنا وحكوا بما كتلمامي وحكوا في لمبا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كسوغانا يقوبها سيكو سابسيسا هديتي قيس هديتي قبيل هديتي قضية دقالة انت با حديث بخاري كسوغان اي لغه ليا والنبي عليه الصلاة والسلام دحدحادينيي ان ددك اسقبتي dad fiican baa ku jira bini aadamkuna ra'yiga uu isku seega waxaa ka mid ah nebigu inantii uu dhalay ee Faatima iyo Ali ibn Abi Talib guriguu yimi Faatima uu yimi ayna ibnu cammak buu ku yidhi in adeerkaa mee dabeetana waxay tidhi waanu ismuran waa isqabannayo muu ku qayluulisan guriga wayga baxay markii la isqabtay Ali wuu iska tegey nabigu calayhi salaatu wasalaam cid buu u diray u raadisa waxaa loo sheegay inuu masaajidka seexday oo masaajidka jiifo isagoo masaajidka hurdaha oo maradii sare ka dhacday oo ciidi ku taalo buu nabigu u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasuu ku yidhi qum yaa aba turaab kunayadaasi maalintaas uu bixiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo raba inuu heshiisiiyo Ali ibn Abi Talib iyo inantiisii waxaa ka mid ah dadkii uu dhexdhexaadiyey maalan nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii kale isna bukhaariga ku soo arooray ee gabadhii bariire la odhan jiray iyo muqiif bariira waa gabadh addoon ah laakiin gabadh cad ahayd say culammadu sheegaan muqiifna nin madow oo addoon u ahaa bariira xorriyaddeedii bay raadsatay mukaatab waxay noqotay inay adduun bixiso xorriyad la siiyo adduun bixiskii Caaisha iyo baa ka caawisay xorriyaddeedii bay qaadatay labada qof ee addoomaha ah hadduu mid xorriyadda qaato xaq buu u leeyahay marka inuu ziwaajkii halkaa ku goyn karo hadduu doonana wuu sii wadi karaa bariira waxay go'aansatay inay iskaga tagto muqiif waanay guriga sii joogin ay furitaankeeda qaadato muqiifna aad buu u jeclaa ilaa xad la yidhaahdo magaalada madiinuu dhex mari jiray markuu arko isagoo dabagala oo la yidhaahda ilmada isha ka timaada gadhkayga di'i jiray baa la yidhaahdaa jacayl uu qabay gabadhaasi diidday ka tagtay nabigu calayhi salaatu wasalaam Cabbaas ibn Cabdilmutalib wuxuu ku yidhi miyaad arkaynin sidan muqiif loo jeclaysiiyey gabadha tan iyo gabadha tani siday u necab tahay ninka kale aanay u rabin dabeetana wuxuu nabigu isku dayay inuu shafeeco qaado oo uu bariiro ku muslaxo inay muqiif soo ceshato oo guriga joogo laakiin wuu ku kari waayey waxay tidhi ma shafaacaad wadda mise ma ergaataho waad shafaaco qaadaysaa mise waad i amraysaa oo dee ilaahay rasuulkiisu hadduu wax amro ma diidi karaan saxaabadu maya shaafic baanahu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ergaanku ugu yimi dabeetana waxay tidhi ninkaa ma rabo
waxaan uga dan leenahay labada qisaba waa qoys isqabtay ama kala tegay oo uu nebigu isku dayay calayhi salaatu wasalaam inuu dhexdhexaadiyo waxaa kaloo sunnadiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam ku soo arooray dad ishaya oo maal isku haya maalan iyo laba qiso bukhaari ku yaalla haddaynu wax ka tilmaamno saxaabigii la odhan jiray kacb ibnu malik iyo ibn abi xadrad ayaa isqabtay kacab baa dayn ku lahaa ninka kan dabeetana dayntii buu bixin kari waayey masaajidkay soo galeen masaajidka gudihiisu markaa ku qabsado oo yidhi war daynta iyadiina sii ka kalena markaa waa warwareejiyey wuu ku adkaystay codkoodii baa kor noqday nebiga calayhi salaatu wasalaam oo qolkiisii ku jira ayaa maqlay dabeetana sajaf ilbeyt yacni sutradii guriga daahii buu iska qabtay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu kacab wuxuu u ishaaro u tilmaamay war nuska dah wuxuu dhexdhexaadinayaa labada nin ishaya ee daynta isku haya nuska daa buu yidhi markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waan yeelay kii kaluu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam war kacoo ninka dayntiisa sii waa la yidhaha wuxuu yidhi waxba ma hayo war kac buu ku yidhi nebigu iyo dayntaas bixi waxna muu haysan shuraax ilxadiid waxay tilmaamaan wuu baxay suuqii buu tegey waxba ma hayo cumaamaddii intuu furtuu guntaday oo go'ii buu gaday go'ii isagoo gadaya islaanay aragtay muslimiinta ka mid ah calaa kulli xaal ninkan waxaa la yidhi nus baa laga daayay hadda bixi mumaatalo dambe lama rabe dabeetana nuskii buu bixiyey waxay